soo koobaya waxaa soo dhacay 60 sanadood dul xaadiska ah oo kun buug beesh laga qori karo oo dokumentigooda iyo waaqicigooda lahay ee aan ahayn laab la kaciyo caadifad maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa laba qodob oo kaliya balanka mid saxada ay keeno Soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaadnimada u galeen ee shacbiga Soomaaliland gaaray 18 May 1991 inay ixtiraamaan kaliya ayaan ku heshiin karnaa laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxbannaanida dawladda Soomaaliland ee qiraan inaynu nahay laba dal oo midoobay iyaga oo isqasbin oo frontier ah maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka iyo ahadigi Soomaaliland gaadhay burco distoorkeenu inuu ku dhisan yahay qof kasta dalka hogaamiyana uu ku qasbay aanu kala xaleexan karin waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta waa xun madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan buu qaaday markuu yiri raalgelin baan bixiyay laakiin wuxuu ku diray markuu yiri waan imanaya hargeysa oo sideebuu ku imanaya la isweydiinaya sideebuu ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxa soo dambiye galeen ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaaranaya Soomaha waan imanaya macnu soo wada soo inta maaha oo taameen aqbalaynaa maya suurtagal maaha ma yeelayno suurtagal maaha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cambad qaad raalgelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo aqlida ay soo socoto laakiin ku iibsan mayno RF laga yiri waan ku soo siyaaranaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad inaan u baahnayn oo bilow markaan soo koobo hadal haynta leeyahay wuxuu imanayaa Soomaaliya imanaya buuri madaxweynaha Muqdisho anu wax kale oo garagaran maaye aan ku cabiree gabayga Faarax Nuure kala gooyin baa arinta ka jawaabaya Faarax wuxuu yiri qosol beera foolal qayaxan qiilan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hoos yaalo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigane maaniga midiya lay qarshaa laygu qali doono qoontiiba lama baananine qarayara nabadu waryaara kala quusanaya qomamada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته